بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan wax yar ka sheekeeyo isbedelada Soomaaliya ay soo martay. Isbedeladaas oo ah dawladihii soo maray Soomaaliya ilaa 1969kii sida aad la wada socotaan Soomaaliya kacaanka ka hor waxaa jirtay dawlad shibila oo madaxweyne ka ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarka Allah naxariisto. madaxweynahaas ku geeriyooday 1969kii lagu dilay magaalada Laascaanood kadibna 5 maalmood kadib wadanka isbedel baa ka dhacay ciidamada qalabka sida qabsaday oo Maxamed Siyaad Barre oo madaxweyne ka ahaa. xukunkaas askariga wuxuu dalka ka jiray 22 sano. ficlan xukun askari waa dhib badan yahay inkastoo la oran karo waxyaalo la taaban karo maanta lagu xasuusan karo ay ka mid ahayd farta Soomaaliga oo maantay aan ku manaafacadsano oo qorno oo adduunka oo dhan laga yaqaano inay kacaanku uu hirgeliyay 1973 qoridda farta Soomaaliga iyo isla markiina ololo lagu qaaday dadka reer miyiga meel kasta ardayda iskuulada dhiganaysay in la yiri waa inaad gaarsiisaan tuulo kasta iyo magaalo kasta geedka hoostiisa inaad geysaan oo dadku Soomaali waa ku hadlayo farta qoridda ay bartaan waa wax la taaban karo oo kacaanku uu sameeyay. wuxuu kaloo kacaanka la taaban karaa arrintii ahayd dad abaartii dheerayd markay dhacday oo dadkii Soomaaliyeed abaari ku dhacday kacaanku wuxuu sameeyay inuu meel dejiyo dadkii oo beeraley iyo kalluumaysatay uu ka dhigo. taasna waa arrin la taaban karo waaye oo kacaanku sameeyay. arrintaas 22 sano ayaa kacaanku wadanka haystay. kacaanka waxa la dagaalamay jabhado hubaysan oo waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya labadaba ka kacay. waqooyiga Soomaaliya waxa ka kacay jabhadii la oran jiray SNM, koonfurta Soomaaliya waxa ka kacay jabhadii la oran jiray USC. jabhadaas waxay horseedeen inuu burburay kacaankii oo Maxamed Siyaad Barre dalka ka cararay oo xukunkii jiray 22 sano dalka ka jiray inuu burburo 1990kii. intii ka dambeysay markii Soomaaliya burbur baa ku dhacay dagaalo sokeeye jaahureer badan dhibaato fara badan dawlad la'aan ayaa muddo lagu jiray. 2000 bishii May ayaa Ismaaciil Cumar Geele Soomaalida shir wuxuu ugu qabtay degmada Carta la yiraahdo oo Djibouti ka mid. Carta 6 bilood baa la fadhiyay waxaa lagu doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad ayaa lagu doortay. Cabdiqaasim Salaad dawladdiisii aad uma aysan hirgelin. Cabdiqaasim hadda muddo dalka madaxweyne ka ahaa xoogaa wuxuu soo magacaabay ra'iisul wasaare la yiraahdo Cali Khaliif Galayd. wuxuu kala magacaabay Xasan Abshir Allah naxariistay. wuxuu kaloo ra'iisul wasaareyaal dawladdaasi dawlad aad u shaqaysay ma noqon. waxaa ku xigay isbedeladii 2002 shirarkii lagu qabtay Eldoret dalka Kenya ama Imbigati loo yaqaan. waxaa lagu doortay madaxweynihii loo jiray Korneyl Cabdullaahi Yuusuf isaguna wuxuu ahaa dawlad ku meel gaara. waxaa ku xigay dawladdaas markii ay iyaduna dhacday madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isla dawladda ku meel gaarka. markii Sheekh Shariifna ay dawladdiisa dhacday waxaa ku xigay dawladda madaxweynaha ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud oo loo aqoonsaday inaysan ahayn ku meel gaar ee dawlad rasmi ay tahay oo 4 sano ay ku shaqeynaysay dawlad rasmi ah oo dhistay maamul goboleedyada maanta jira oo la yiraahdo 5 maamul goboleed. dawladdaas 4 sano way dhamaatay. maantay oo dalka madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli waxaad moodaa doorashadii dawladihii ku meel gaarka iyo tii Xasan Sheekh oo rasmiga ahayd wax lagu soo dooranay oo ahayd 4.5 afar iyo bar iyo doorasho dadban inuu madaxweynahan uu yiri anigu dalka waxaan gaarsiinayaa doorasho qof hal qof iyo cod in loo codeeyo dadku ay codeeyaan dadka shacabka Soomaaliyeed. taasina dalkii oo aan in badanna dawladda gacanta ugu jirin waxay u muuqatay inaysan suurtagal ahayn. iyaduna waxay dhalisay khilaaf oo maantay ay ugu dambayso in ra'iisul wasaarihii 3 sano markii shaqeynayay 3 maalmood ka hor ay baarlamaanku kalsoonidii kala noqdaan. shirkii Dhuusamareeb la iskugu tagay 5 maamul goboleed
iyo madaxweynaha iyo prime ministerka waxbaa lagu soo heshiiyey waxaa lagu heshiiyey bal in guddi farsamo la sameeyo si ay u soo tala bixiyaan in doorasho dadban la aado oo waqtigeeda ku dhacda oo ay ugu dambayso bisha soo socota bisha Febraayo 2021 sideedeed oo ah maalinta ugu dambayso oo madaxweynaha uu ku egyahay muddo xileedkiisa baarlamaankuna waa ka soo horeeyaan sanadkan hadda socda 20ka bisha 11 ayaa laga yaabaa marka jahwareerkaas ayaa jira dadka Soomaaliyeedna aad ay ugu mashquulsan yihiin oo leeyihiin ma wuxuu lagu heshiiyo marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida wanaagsan ilaahay inuu waafajiyo Soomaaliya waxay u baahan tahay dawlad Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad Soomaaliya maantay qabiil iyo dagaal iyo midna uma baahna qof kasta oo Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dalkiisa oo nabada dalkiisa oo dawlad leh dalkiisa oo sharaftiisi iyo mustaqbalkiisi iyo ummadda Soomaaliyeed waxay ahaan jirtay meel walba ay tagtay ummadda Soomaaliyeed markii dawlad la'aan ku dhacday dagaalo sokeeyay wax walba ku dhacay yani waxay gaartay dadkii Soomaaliyeed in la yiraahdo maxaa tahay Soomaali ma naqaano oo saaxada adduunka ay yani ay ka baxaanba marka inay soo noqoto dawladdii Soomaaliyeed sharaftii Soomaaliyeed Soomaali israacsan Soomaali qabiil iska ilowday Soomaali wada walaal ah sidaas ayaan ka rajaynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته